السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنا صحابتي قيمة بدن maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa cashirkeena tobanaad ee Microsoft Word ayaan ku qaadanaynaa. Waxaan kusoo guda jirnay barashada software-ka Microsoft Word ayaan kusoo guda jirnay. Cashirkan ka horeeyay waxaan kusoo qaadanay wax la yiraahdo page border ayaan kusoo qaadanay. Cashirkeena maanta hadduu eebweyno raali ka noqdo waxaan ku qaadanaynaa creating a password. Sida Word-ka loogu xiro password ayaan qaadanaynaa iyo sida looga saaro intaba waan isla arkaynaa. Ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa ama waxaan soo galaynaa Word-ka ayaan soo furaynaa. Word-ka markii aan soo furno sidaan oo kale gudaha markii aan soo galno waxaan tagaynaa halkan ay noogu qoran tahay file. Halkan ayaan ku dhufanaynaa. File markii aan ku dhufano waxay noo soo bixayso wejigan ama daaqadan ay noo soo bixayso. Kadibna waxaan leenahay save as. Waxaan noogu dhufataa halkan ay noogu qoran tahay save as ayaan ku dhufanaynaa. Save as markii aan ku dhufano waxaan u baahanahay inaan isweydiino documentiga aan rabno inaan password-ka ku xirno xageen u baahanahay inaan dhigno. Tusaale hadda documentiga Microsoft Word ay noogu qoran tahay ayaan u baahanahay inaan password ku xiro. Midka password-ka lagu xirayo xagee la dhigaa su'aashu waa taa. Waxaan dooranayaa desktop-ka ayaan dooranaa. Desktop-ka idhiga leeyahay. Okay, desktop-ka markii aan dhaho waxa ii soo bixayso ama meel kale dooro ama desktop-ka dooro meel aan meesha dooratidba waxa ii soo bixayso halkan daaqadan aan wejigan ayaa ii soo baxayo. Wejigan markuu ii soo baxo waxaan ka dooranaya halkan hoose ay ku qoran tahay tools. Halkan ayaan click ku siinaya oo falaarta yariista ayaan gujinaya. Halkan markii aan ku sii dhufto daaqadan kale ii soo bixayso ay ku qoran tahay map network save options general options web options compress. Waxaan ku dhufanayaa qodobka dhexe ee ku qoran tahay general options kaas ayaan ku dhufanayaa. Labana way ka sareysaa labana way ka hooseysaa. General options halkan ayaan ku dhufanayaa. Halkan ayaan dooranayaa. Okay, general option markii aan ku dhufto waxa ii soo bixayso daaqadii password-ka ii soo bixayso. Su'aal fiiri halkan waxaan gelinayaa password-ka halkanna waan xaqiijinayaa password-ka kale ayaan ku celinayaa. Tusaale 1 2 3 4 5 space aan ku xiray. Halkan aan imaado 1 2 3 4 5 kadibna okay aan dhaho. Ku celi kale marar badan laga yaabaa inuu ku celi uu ku dhaho 1 2 3 4 5 mar waliba password-kii hore ku celinay. Mar kale aan ku celino 1 2 3 4 5 kadibna okay aan dhahno. Okay, save idhe. Okay, documentigan Word-kan haday waan soo galnay bila password aan soo galnay. Hadda waan xireynaa banaanka ayaan tagaynaa waan ku soo laabanaynaa. Haddii intaan xirno aan ku soo laabano nidaamkii haday oo kale hadaan u soo galno wax password uusan na weydiinin taas macnaheedu waxay tahay password inuusan ku xirneen. Haddii uu ku xiran yahayna afka hore uma soo gudbi karno halkan ma imaan karno inagoo aan password-ka soo gelin. Aan isla aragno. Okay, tusaale aan isla dhahno cancel naga xir kadibna waa kan Microsoft Word aan soo furno double click noo dhaho noo soo kici. Fiiri wejigaa fiiri. Hadda muxuu ina leeyahay enter password to open a file. Si aad file-kan u furto waxaa soo gelisaa password-kaaga soo geli. Okay, ugu horeyn password-ku waan qaldeena aan aragno wuxuu na dhahayo 1 2 3 4 5 space ku xiray haddana 4 space aan geliyay kadibna okay aan dhaho. Fariintaan fiiri the password is incorrect. Jida password-kaagu waa uu qalday oo ma saxna. Jida Word-na lama furi karo documentigan laguma furi karo. Okay, aan iska cancel gareyno waa aan ku soo laabano mar kale Microsoft Word double click noo dheh. Hadda password-keena aan si sax ah u gelino 1 2 3 4 5 kadibna okay aan dhahno. Ku celi ku leeyahay 1 2 3 4 5 waa ku celi kartaa adigoo aadan ku celinin enter waa dhigi kartaa toos ku gudbina markaas. Okay, waa kan Word-keena hadda password ayaa ku xiran. Ka waran haddii aan u baahanahay password-kaas inaan bedelo sidee u bedelaa? Ama haddii aan u baahanahay password-ku dhan inaan ka qaado bila password aan dhigana sidee ayaa u samayn karaa? Okay, isla wadadii aan ku soo laabanaynaa file ayaan tagaynaa save as ayaan kasii tagaynaa kadibna desktop-ka aan tagaynaa
desktopka markaan tagno tools ayaan kusii laabaneynaa general option daaqadii passwordka noo soo baxayso waa kuwan passwordkeena noo muuqda mujida passwordka marka haddii aan u baahanahay inaan iska bedelo kan ayaan tira okay 1 2 3 oo waxaan ku xirtay b small ah okay kuwan iga tir 1 2 3 kadibna okay idhe ku celi u leeyahay isla nidaamkii 1 2 3 okay mar kale 1 2 3 okay idhe kadibna save idhe okay wuu save garaysan yahay hadda aan ka soo baxo banaanka aan ka imaado kadibna aan kusoo laabto okay Microsoft Word waa kan passwordkii hore maaragta 55 kan ku galo 1 2 3 4 5 okay enter idhe muxuu leeyahay passwordka wuu qaldan yahay ku laabo passwordka okay banaankan ka aadaya waan kusoo laabanaya okay mar kale aan kusoo laabto okay hadda 1 2 3 oo b ah kadibna enter ayaan dhaho 1 2 3 enter idhe waa kan waxaan aragnay sida wordka password loogu xiro iyo sidoo kale sida passwordka loo bedelo haddaan u baahanahay passwordka inaan ka qaadnana keliya waxaan sameyneynaa meeshii isla wadadii hadda ayaan maraynaa daaqadaha passwordka ayaan ever uga soo tagaynaa ama banaanada okay aan ku laabano file aan tagno kadibna save as waa maaragtay desktopku noo yaalaa okay kadibna tools noo tag general option tag waa kan daaqadan aad tiray oo keliya passwordadana iska tire kuwan markaad tirtid okay aad leedahay okay save waa maaragtay kadibna banaanka ka tagay haddii password oo na weydiinaya hadda laakiin bila password ayuu yahay okay laba mar kili kaan siino aan arkano gudahaan u galno waa kan marka waa maaragtay kolley wordka sida password loogu xiro passwordka haddaad u baahan tahay inaad iska bedesho sida loo bedelo iyo sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad ka furtana sida loogu furo ama maaragtay password bila password loo dhigo waan isla aragnay cashirkeena 10aad halka ayuu nooga egyahay sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe noo saar like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka